xeeriyay magacaabida xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda Puntland oo ka kooban wasiiro, wasiir ku-xigeenno, wasiiro dawlayaal waxayna kala yihiin sidaan golaha wasiirada cadaaladda iyo arrimaha diinta Cawli Sheekh Xaamud lambar 2 arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad lambar 3 wasiirka amniga iyo DDR-ta Cabdisamed Maxamed Galan lambar 4 wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal lambar 5 wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqafaar Cilmi Xaangi lambar 6 wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Maxamed Xasan lambar 7 wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan lambar 8 wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Axmed Bashiir Muuse lambar 9 wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdi Cismaan Machiino lambar 10 wasiirka hawlaha guud iyo garoomada Xuseen Cismaan Lugadoor Gabili lambar 11 wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Aamino Cismaan Xaaji Jaamac lambar 12 wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cali Xasan Axmed Sabaarey lambar 13 wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Cismaan Aadan Fiisigis lambar 14 wasiirka deegaanka beeraha iyo waraabka Ismaaciil Diiriye Gamaadiid lambar 15 wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi lambar 16 wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Faarax Maxamuud Awaash lambar 17 wasiirka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Jaamac Faarax Muuse lambar 18 wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan haddana waxaan gelaynaa wasiir ku-xigeenada lambar 1 wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha diinta Dr. Maxamed Cali Faarax lambar 2 wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Cabdiweli Mire Xirsi iyo Maxamed Musadaq Maxamed lambar 3 wasiir ku-xigeenka amniga iyo DDR-ta Yuusuf Maxamed Ismaaciil lambar 4 wasiir ku-xigeenka maaliyadda Umar Xasan Fiqi iyo Yaasiin Ibraahim Ciise lambar 5 wasiir ku-xigeenka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Mire Maxamuud lambar 6 wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare Mukhtaar Maxamuud Xasan Jayte lambar 7 wasiir ku-xigeenka caafimaadka Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Xirsi lambar 8 wasiir ku-xigeenka hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Maxamed Xuseen Xaashi lambar 9 wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda Yaasiin Cartan Maxamed lambar 10 wasiir ku-xigeenka hawada iyo wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoomada Sucaad Saalax Nuur lambar 11 wasiir ku-xigeenka haweenka iyo horumarinta qoyska Saharo Cabdi Xirsi lambar 12 wasiir ku-xigeenka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax lambar 13 wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Cabdiweli Seed Cilmi lambar 14 wasiir ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Ciise iyo Faa'iiso Cali Ismaaciil lambar 15 wasiir ku-xigeenka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Mustafa Daahir Aadan lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdikhaalid Maxamed Maxamuud lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdikhaalid Maxamed Maxamuud lambar 17 wasiir ku-xigeenka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cabdiraxmaan Xirsi lambar 18 wasiir ku-xigeenka tamarta macdanta iyo biyaha Maxamed Bashiir Cabdullaahi wasiir dawlayaasha
wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka saalax xabiib jaamac. lambar 2 wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed axmed kulan. lambar 3 wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maxamed cabdulqaadir cismaan. lambar 4 wasiiru dowlaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga cabdiraxmaan caydiid ibraahim. lambar 5 wasiiru dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi xasan rooble. lambar 6 wasiiru dowlaha caafimaadka sayid cumar guuleed.